السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله. داودياal sharafta leh kusoo dhawaada arag damiir. markuu Muuse dhameystay shaqadiisa arijirnimada 10 sano guursadayna gabadh odayga suuban ayuu go'aansaday inuu isaga tago magaalada Madyan ee ku taalay Xijaaz dhulka jasiiradda Carabta wuxuuna doonay inuu soo laabto meesha uu ku dhashay ee Masar. markuu soo dhawaaday buurta Duur Siinaa ee Masar xilli habeen ayuu arkay dab wuxuuna ka codsaday xaaskiisa inay sugto isagana aado dhanka dabka si uu soo qaado dhuxul dab ama uu barbaaro cid wax tusisa. markii uu yimid waadiga Tuwa dhanka bidig ee buurta Duur meel barakaysan oo u dhow geedka ayuu maqlay dhawaaqa ugu wanaagsan oo leh Muusa waxaan ahay rabbigaaga iyo rabbiga koonka ee siibkabahaaga waxaad ku sugan tahay waadi dahiran ee Tuwa waana ku doortay ee maqal waxaan ku waxyoonayo waxyiga ugu horeeya uu Ilaahay siiyo Muuse wuxuu noqday mid toos ah aan u dhaxeenin malag. Muusena si toos ayuu u maqlay hadalka Alle. Ilaahayna wuxuu u sheegay tawxiidka iyo oogida salaada iyo camalka iyo inay jirto saacad qiyaamo oo qof walba la abaalmarinayo waxa uu shaqaystay. wuxuuna ugu digay Muuse inuusan u ilaalin cid rumaynin qiyaamaha ay naftooda raaceen. waana kadib ayaa Ilaahay ku yiri Muuse maxaad ku sidataa gacantaada midig. Nabi Muuse ayaa ku jawaabay tani waa u sheeda waan cogsadaa waxaan u adeegsadaa arigayga dana kalena waan ka leeyahay. Ilaahay ayaa ku yiri Muuse tuur ushaada. Nabi Muuse markuu ushiisa tuuray waxay isu bedeshay ma soconaayo. Nabi Muuse ayaa cabsaday wuu dhabar jeediyay wuxuu ka cabsaday oo ka yaabay ushii uu adeegsanayay arijirnimada oo isu bedeshay mas. Ilaahay ayaa ku yiri soo noqo Muuse hana cabsan anaga ayaa ku celinayna ushaada sideedii hore ay ahayd. Muuse ayaa qaaday waxayna ku soo laabatay usha sideedii hore. deedna Ilaahay ayaa ku yiri Muuse isku dun gacantaada gelina jeebkaaga garbahaagadan isku dhajiyo isku adkee haddii aad dareento cabsi sida cabsida kaaga baxdo deedna ka soo bixi gacantaada jeebka waxay noqonaysaa mid cad aan dhib lahayn. Muuse sidii Ilaahay far ayuu sameeyay gacantiisa ayuu jeebka geliyay iyadoo isku laaban. jeebkana sida caadada horeed waagii hore wuxuu ku yaalay bartamaha xabadka sida hadda bay adeegsadaan duqooshinka qaar. deedna Muuse wuxuu ka soo bixiyay gacantiisa jeebka waxay noqotay mid cad aan dhib lahayn. Ilaahay ayaa ku yiri Muuse labadan mucjizo waxay ka ahaatay xagga rabbigaaga waxaad tahay rasuul ee orado u tag Fircoon waa mid xadgudbay qoomkiisana sidoo kale waa kuwa xadgudbeen. Nabi Muuse Ilaahay ka codsaday inuu Ilaahay laabtiisa u waasiciyo arrimihiisa u fududeeyo carabkiisana u furfuro si ay u fahmaan dadka hadalkiisa. wuxuuna yiri rabbiyow waxaan ka dilay Fircoon qoomkiisa naf waxaan ka cabsanayaa in ay dilaan ee ila dir walaalkayga Haaruun asiga iga hadal wanaagsan oo iga fasiixsan ha i kaalmeeyo hana i rumeeyo waxaan ka cabsanayaa in ay beeniyaan. walaalkayga Haaruun ka dhig wasiirkayga igu adkee ilana wadaaji rasuulnimada si aan labadeenaba ku daahirno ku xusno in badan adiga ayaa noo jeeday. Ilaahay ayaa ku yiri Muuse waa lagu siiyay su'aashii codsigii aad dalbatay mar kale ayaan kugu galad sheeganay sidii horeba kugu galad yeeshay marka aad yareed iyo markaad naf dishay iyo markaad ku sugneed sanado far badan magaalada Madyan. walaalkaaga waan kaaga dhignay cududaada ee labadiina bisraaca u taga Fircoon waa mid xadgudbay waxaana ku tiraahdaan hadal wanaagsan laga yaaba inuu kuwaana qaato u cabsado. wuxuu yiri Nabi Muuse Ilaahay waxaan ka cabsanaynaa inuu nagu xadgudbo oo waxna yeeleeyo. Ilaahay ayaa ku yiri ana idin la jiro idin arkayo waxba idin ma gaarsiin karaan ha cabsanina. deedna wuxuu soo galay Muuse Masar wuxuu la kulmay qoyskiisa gaar ahaan walaalkiisa Haaruun wayna israaceen waxay aadeen dhanka Fircoon. markay u yimaadeen Fircoon ayaa waxay ku dhaheen Fircoono waxaynu nahay laba rasuul Ilaahay soo diray ee waxaan ka doonaynaa qura in reer bani Israa'iil nala dirto aadan cadaabin u gumaysanin. Fircoon ayaa yiri Muuse miyaanan ku soo barbaaranin adigoo yar noloshaadii mishaarkaada aan ka faala qaadnay in badan oo da'daada ka tirsan agteen ayaa ku nooleed deedna waxaad samaysay waa ogtahay waxaad tahay mid abaal daran. Nabi Muuse ayaa ku yiri waan sameeyay balse xilligaas waxaan ahaa qof aan wax ka siinin waa idinka cararay marka idinka cabsaday deedna Ilaahay ayaa ii doortay nabinimo igana mid dhigay rususha. miyaad igu galad sheeganaysaa anigoo hal qof ah soo barbaarisay isoo ka faala qaaday dhanka kalena waxaad cadaabtay oo gumaysatay reer bani Israa'iil waxaad ka dishay ubadkooda dumarkooda waad xalaaleysatay hal qof aad caawinaysa miyaad ku qarinaysaa xasuuq aad u geysatay qoom dhan. Nabi Muuse ayaa doonayay inuu Fircoon dareensiiyo in abaalgudka qofka dulmiga badan oo gardarada badan oo sameeyay hal wanaag ee ka soo horjeedo cadaab iyo cadaadis iyo gardaro uu ku sameeyay dad kale in aysan banaanin abaalgudkiisa. Fircoon markuu ku qanacay hadalka Nabi Muuse ee ku aadan abaalgudka cid wax ku sameysay balse dhanka kale xumaan iyo dulmi kala sameeyeen ayaa wuxuu u gudbay mowduuc labaad موضوع توحيدك. فرعون ayaa yiri Muuse rabbigiina waa kuma muxuu yahay rabbiga caalamka. Nabi Muuse ayaa ku jawaabay rabbigeena waa rabbiga wax walba oo siiyay abuuristiisa kadibna tusay wadada toosan. rabbigeena waa rabbiga cirka iyo dhulka inta u dhaxayso. Fircoon asagoo ku jaasjaasay ayuu wuxuu ku yiri inta ku hareerasneed ee dawladiisa ka tirsan war ma maqashaan. Nabi Muuse ayaa ku jawaabay rabbigeena waa rabbigiina iyo rabbiga dadkii hore. Fircoon ayaa yiri waa maxay xaalkooda dadkii hore ee jiilashii hore ee la soo dhaafay. Nabi Muuse ayaa ku jawaabay cilmigooda wuxuu ku jiraa kitaab Ilaahay agtiisa yaalo aanan dhumaynin aanan la hilmaamin
hilmaamaynin fircoon ayaa ku yidhi inta ku hareeraysneed rasuulka ladiin soo diray waa mid waalan nebi muuse ayaa ku yidhi rabbigeena waa rabbiga qurax ka soo baxay qurax u dhacday inta u dhaxayso haddaad caqli leedihiin fircoon ayaa yidhi haddii aad yeelato ilaah aan aniga ahayn waan ku xirayaa xabsi ayaan ku taxaabinayaa kadib fircoon wuxuu ku yidhi wasiirkiisa ugu dhow ee la dhaho haamaanow ii huri dhoobada waxaad ii dhistaa sar dheer waxaa laga yaabaa inaan gaaro waddooyinka samada si aan u soo arko muuse ilaahiisa waxaan u malaynayaa inuu been sheegaye nebi muuse ayaa ku yidhi bal ka waran haddaan kuula imaado caddeen fircoon ayaa ku jawaabay haddaad run sheegayso keen caddeenta aad sheeganayso kadib nebi muuse ayaa tuuray ushiisa waxay noqotay mas muuqda gacantiisa ayuuna jaabka geliyo ka soo saaray waxayba noqotay mid cad ay wada arkayaan fircoon ayaa intuu yaabay ayuu wuxuu ku yidhi kuwii ku hareeraysnaa dowladdiisa ka tirsan kan waa saaxir aqoon leh sixirkiisa ayuuna doonayaa inuu idinkaga saaro magaalada ee maxaad ifaraysaan in aan sameeyo la taliyaasha fircoon ayaa ku yidhi u sug asiga iyo walaalkiisaba waxaan iskugu soo wacdaa wixii saaxir ahaa oo magaalada degan kulmin maalin fircoon markuu ku qancay taladooda ayuu ku yidhi nebi muuse muusow miyaad nala timid sixir ood waxaad doonaysaa sixirkaaga inaad nooga saarto magaalada waxaana kuula imaanaynaa sixir asagoo kale ah ee waxaad noo samaysaa balan aan laga bixinin anigii adigaba iyo meel aan ku kulanno isla naqaano nebi muuse ayaa ku yidhi balankiin wuxuu noqonayaa maalin cadceedda joogto dadkana la iskugu soo waco xilli barqa ah kadib sidii ballanteed ayaa nebi muuse iyo walaalkiisa haaruun waxay yimaadeen goobtii lagu ballamay fircoon iyo saaxiriintu soo ururiyeyna way yimaadeen sidoo kale waxaa goobta yimid dadkii codsiga loo diray dadweynihii ayaa yimid goobta saaxiriintii ayaa ku yidhi fircoonoo abaalmarin mana siinaysaa haddii aan ka adkaano muuse fircoon ayaa ku yidhi haa waxaaba noqonaysaan dad aad iigu dhow nebi muuse ayaa ku yidhi kuwii saaxiriinta ahaa magaciin ba'e ilaahay ku been abuuranina wuu idin ciqaabayaa waxaana hoogay ciddii alla ku been abuurato hadalka nebi muuse ayaa saameeyey qaar ka mid ah saaxiriinta fircoon waxayna bilaabeen inay showraan ay faqaan si hoose iyadoo dood dhex marayso qaarkood ayaa ku yidhi war labadaa nin waa saaxiriin waxay doonayaan waddanka inay idinka saaraan iyagoo adeegsanaya sixirkooda waxayna la tagayaan sharafkiina iyo magaciina meesha ku baabi'inayaan ee wada uruuriya dhagartiina aanna midowno hal dhinacan ka soo wada jeedsano waxaa guulaystay maanta ciddii sara marto deedna waxay dhaheen muusow miyaad tuuranaysaa marka hore adiga mise anaga hor tuurano nebi muuse ayaa ku yidhi idinka tuurta marka hore marka ay tuureen xargahooda iyo lashooda ayay indha sarcaad ku rideen nebi muusena wuxuu u arkay inay soconayaan wuu cabsaday balse ilaahay ayaa u waxyooda ku yidhi ha cabsanin adiga ayaa sareeyo ee tuur waxa gacantaada midig ku jiro muusow way cunaysaa waxa ay tuureen waxay sameeyeen waa sixir keliya sixirna ma guulaysta meel kasta uu ka yimaado marka uu tuuray nebi muuse ushiisa ayaa waxay noqotay mas waxayna bilowday inay cunto xargihii iyo ulashii ay sixirka dhigeen way la yaabeen waxay garanayeen sixirka waxayna ogaayeen inay iyaga ugu cilmi badan yihiin xagga sixirka ee magaalada dadka ku sugan waxay ogaadeen muuse waxa uu haayo inuu sixir ahayn sujuud ayay la wada dhaceen dhammaantooda waxayna ku soo biireen diinta islaamka tawxiidka iyagoo leh waxaan rumaynay rabbiga haaruun iyo muuse fircoon ayaa ciil dartiisa u carooday oo yidhi oo miyaad rumaysan intaan aniga idiin ogolaanin ilaan fircoon wuxuu isu arkayay inuu ilaah yahay siduu ku yidhi nebi muuse wuxuu u arkayay hadalkiisa inuu ka sareeyo dadka dhan deedna wuxuu yidhi muuse ayaaba ahba macalinkiina weyn oo idiin soo baray sixirka gacmaha ayaa idinka jajarayaa iyo lugaha si isdhaaf ah waan idin daldalayaa markaas ayaad ogaan doontaan cidda ugu cadaab daran uguna waarid badan saaxiriintii soo muslimay ayaa ku yidhi fircoon kaama dooranayno caddeemaha noo yimid iyo allihiina abuurtay ee xukun waxaad xukumayso waxaad awooddaa keliya inaad nagu xukunto inta dunida la joogo waxaan rumaynay rabbigeena hanuu dembi dhaafo iyo sixirkii aad nugu khasabtay aan kuu samaynayba ilaahay ayaana u khayroon una waara xilligii barkada waxay ahaayeen gaalo saaxiriin ah galabtiin waxay noqdeen mu'miniin shuhada ah keligii taliya galad badan qalbi aqoon-yahan ma qabto wasala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wassalaamu calaykum